waxaa halkan maanta ina keenay oo aynu isku nimid inaynu soo kormeerno waddada cad iyo balliga laga qodayo Salaxley waxaana halkan lagu soo booqday oo la soconnaa gudoomiyaha xisbiga UCID injineer Faysal Ali Xuseen oo deegaanka kana rabana inuu wixii uu ku tari karayo ku taro waddada iyo xagga aqoontiisa injineerna weeyaan balligan iyo wixii la midaba marka waddadii hadda waxaa carakaawadu taallaa 13 kilomitir kilomitirkii u dambeeyna hadda la wadaa 6 kilomitir oo riiga ilaa iyo bidaan warta bidaana ayaa noo hadhay intaasna insha Allah labada wiiga soo socday la saddexda wiig soo socda ayaanu carakaawada dhiganaa carakaawada marka la dhigo wiiga dambe waxaan bilaabaynaa kala bixintii garaacistii rushayntii ciidda halka laga qodayaana waxaan filayaa inay nagu filaani doonto ilaa iyo inay guuxa oo isagana la bilaabi doono markaan carakaawada dhamayno qoolcada ilaa Salaxley waxaan hadda ku wareejin doonaa oo warbixin ina siin doonaa isaguna guud iyo taageerada ciidan ku helno iyo baahida loogu baahan yahay inay dadku ka qayb qaataan Suldaan Cismaan Sayyidina Maxamed marka hore Ilaahay baa mahad leh subhanahu wa ta'ala isku keenay goobtan iyada waxa maanta ina soo booqday oo runtii shaqadii socotay waddada cad iyo balliga soo kormeeray gudoomiye Faysal Ali Waraabe gudoomiyaha xisbiga UCID gudoomiye ku soo dhawow runtii indhahaaga waad ku soo aragtay maxaan ku raahday shaqadu say u socoto iyo waddada inta ay hadda carakaawadu taalo waad aragtay runtii shaqada xawliga baa socota baabuurada aynu hadda ina daba taagan oo dhowr iyo 10 baabuur ah oo deegaanka laga soo ururiyay ayaa shaqada hariya habeen wada degmada Salaxley oo gudida maxaan ku raahday golaha deegaanka Salaxley oo u horeeyay gudoomiyaha degmaduna heegan bay u yihiin dadka iyaga martigeliyay oo runtii halka u taagan oo wixii baahiya kolba ku yimaada la dul taagan dadkan runtii waxay go'aansadeen sanadkan isaga in hawshan la qabto oo aan loo kala harin waxa markaa inaga dhiman runtii dadka dibadda gaar ahaan maaragtay qurba jooga oo wali doorkoodii uu dhiman yahay marka runtii raggii markii hore aad uga hawl qaatay bay ahaateen oo wax badan ka qayb qaatay oo runtii halkaas soo gaarsiiyay intii hore laakiin tan imaka doorkan dambe qayladoodii waa loo diray waynu sugaynaa insha Allah iyagana waxaan ka codsanaynaa in ay si dhaqso inooga soo gaaraan sababtoo waxaan doonaynaa inaan ilaa ina guuxa aynaan kala goynin hawsha haddaynu ka kala goodo runtii waxay noqonaysaa in dib loo soo qabto way adkaanaysaa marka adigana gudoomiye waxaan ka codsanaynaa wixii taageero iyo cod iyo maxaan ku ilaahay waddada aad la daba taagnaanaysaa inaad kaga qayb qaadato maxaan ku ilaahay dibadii gudabana aad u marto si aynu hawshaas insha Allah ta'ala isaga dhamayno oo doorkeeda iga qaadano waxaan u mahadnaqayaan ku khatimay waxaan u dhibay gudoomiyaha degmada Salaxley dadkii ka qayb qaatay dhamaantood oo inuu mahadnaqaynaa wasaaradda maxaan ku raahday wadooyinka iyo horumarinta jidadka aad iyo aad baan wasiirka iyo agaasimaha iyo dhamaan ugu mahadnaqaynaa doorka joogtada ay ku leeyihiin waxa kale oo si aad ugu mahadnaqaynaa madaxweynaha Soomaaliland oo isaguna runtii biyo xireenkan hadda aynu taaganahay qaybta labaad dawladda inaga siiyay una gartay isagu in halkan laga qodo biyo la'aanta way jirtaa dalka oo dhan laakiin Salaxley waa meelaha ugu daran bay ka mid tahay hase yeeshee inaguna waan ognahay in kuwii horeeyay la inaga dhigay maaha hay'ad qodi meesee waa miisaaniyadii dawladda ayuu ku jiraa iyagana aad iyo aad baan ugu mahadnaynaa waxaan ku wareejinayaa gudoomiyaha gudida tacaala maanta inuu soo afjiinay nimaadna labadan mashruuc ee waaweyn ee ka socda degmada Salaxley mar labaad waxaan u mahad celinaa gudoomiyaha xisbiga UCID oo soo booqtay maanta labadan mashruuc runtii aad iyo aad baan ugu faraxsanahay maanta halkan mudane gudoomiyaha noogu timaado isla markaana aan warbixin kooban ka siino labada mashruucba aan ku horeeyay mashruucan biyo xidheenka imika aynu taaganahay waa mashruuc ay magaaladu aad ugu baahnayd sidaad ogtahay magaaladu waxay ka isticmaali jirtay biyaha barkadihiina aad bay u burbureen way yaraayeen biyaha magaaladu laba riig baa magaalada loo sameeyay oo loogu talagalay mid ahaan in magaaladu ka faa'iisto wali ilaa hukuumadda guuleysanayn riigaasi inuu active noqdo oo uu shaqeeyo mid baa shaqeynaya biyuhu aad bay u yar yihiin kaasi xooluhu buu ku filayay marka banka dhexdiisa ka socda biyo xidheenkan xukuumadda ku deeqday runtii aad iyo aad baan madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliya uga mahad celinaynaa maadaama mashruucan aanu baahi weyn u qabnay annaguna insha Allah billahi karim degmaahan maadaama aanu hayno
dhisaynkii iyo naqshadii loo sameeyey mashruucan oo ilaa biyagelinta magaalada ay ku jirto waanu ku ilaalin doonaa insha Allah billahi kariim waxaan rajaynaynaa mashruucaasi sidii ay wasaaraddu ballan qaaday inuu u fuli doono insha Allah billahi kariim arrinta wadadu waa muhiim wadda reerleeya waddadani maaha wadda Somaliland waa waddada kaliya maxaan ku raadayay u dhiganta ama labaad ee soo raacda waddada Wajaale marka laga tago waddada Wajaale laga yimaado waddada ugu population-ka badan waddooyinka soo gala gobolka Maroodijeex waa waddo ay dad fara badan ka faa'iideysanayaan waxaan rajaynayaa insha Allah billahi kariim xukuumadda Jamhuuriyadda Somaliland iyo bulshooyinka reer Somaliland ba waddadan ka qayb qaadan doonaan aad baan ugu mahadnaqaynaa guddiga waddada oo adkaysi fara badan u yeeshay muddadii ay waddadani socotay iyadoo aan lacag qasabda ugu jirin haddana maalin qura aanay iska taagin waxaan rajaynaynaa insha Allah billahi kariim inay sii dadaali doonaan oo aanay daali doonin dadweynahana waxaan ka codsanaynaa iyo dadkii horeba uga qayb gali jiray qaaraanka waxaan ka codsanaynaa insha Allah billahi kariim inay aad iyo aad u soo dadaalaan si aanay qolada guddiga shaqaynaysa u moraal jabintee soo jawaab baan leenahay xukuumaddan waxaanu ka rajaynaynaa maadaama mashruucan uu yahay mashruuc aad u ballaaran oo mashruuc reer ka shaqayn karaya uu ka ballaaran yahay inay si dhaqsaa insha Allah billahi kariim uga soo jawaabto waxaanu mahadnaqaynaa Mataan Gahayro ka mid ah guddiga beesha ama dhismaha waddada oo isagu gogosha u soo qaatay Salaxley oo nala jooga halka marsagana aad iyo aad ugu mahadnaqayaa aad baan gudoomiye ku soo dhaweynaa salaatu ala sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wasallam marka hore Ilaahay baa mahadlay subhanahu wa ta'ala Ilaahay baa keligii mahadlay waxaan aad iyo ugu mahadnaqaynaa guddida waddada oo dib u soo noolaysay shaqadaas oo in badan istaagtay ayaan ugu mahadnaqaynaa waxaan u sheegnaa dadka u sheegnaa waddadu waa soo sheeg gudoomiye wadda reer leeyahay maaha infrastructure-ka waa la wada leeyahay Somaliland laba wadda jirtay oo dalku magaalada ka dhismeen Somaliland waxa way waddada Berbera iyo Hargeysa isku xidha iyo waddadana waddada cad oo miyiga isku xidhi jirtay waddadani waxay waddadii isku xidhi jirtay miyiga oo wixii miyiga laga keenayo amba ahaato subag amba xoolahaato waxa wixii intii gudaha looga baahan yahay halka baa laga keeni jiray wixii la dhoofinayo xagaas waxa laga keeni jiray wixii soo degay dibadda uga baahanay labada waddo ayaa irmaana oo Somaliland laga dhisay magaalooyinkeeda waxa waddadan gudhay markii aynu 60kii dawladnimada qaadanay aynu inaga iyo Ethiopia isku xumaanay ayaa waddadan xidhantay oo tuuga lagu gali jiray markii dambe Ethiopia hadda waxay la tahay waddadani inay dhaqaalihiina ay ka qaadan doonto qayb libaax maday furanto ilaa waxay soconaysaa marka ilaa feer bay socotay waddadani wati Talyaanigu uu sameeyay imikana hadii insha Allah taala waxay imikala ka shanaad waxay min dhalinyaro ah oo magaranaysa progressive hor socda oo dadaalaya inuu kila ka shanaad oo kila Soomaaliyada oo kila reerlii aan ahayn oo kila ka wax lagu difaaci karaa oo lagu ilaalin karaa waa kila ugu weyn marka ay labaad Ethiopia waxa lagu difaaci karaa Soomaalnimo ayaa laga faa'iideysan karaa lagu dhulkaas lagu ilaalin doonaa ka ninkaas yimi insha Allah taala ana waan tagi doonaa insha Allah waan soo baridin doonaa isna waa diyaar warkayga imanaya in waddadii dhagax buur ka soo qaado ilaa ay keenayna guuxaa inuu keena marka iyana kala masayna waddada kasta ee Somaliland sameysata yaa reer loo aaneyn waa wadda reer Somaliland oo laga wada faa'iidsanaya insha Allah taala tii isku xidhi jirtay Burco iyo Hargeysa waa dhisi doonaa waxa waddanka horumariya waxa weeye waddo magaalada Oodweyne waxaan jirtay waddooyinka magaalooyinka ugu waaweyn anoo yar baan tagay Arab baa joogtay fooqobay lahayd ya habareetay baa deganaan jirtay oo tagay anoo yar hooyaday qaxaysay maanta waad iga arkay 200 oo arday baa ka soo baxay secondarygii 9 baa ka soo baxay waad arkay waa wadda la'aantii gabiida kun iyo wax ka soo baxay konton waa waddadii waddadu waa infrastructure-ka adduunka waxa lagu kala baxaa infrastructure-ka marka waan aad iyo aad baan ugu mahadnaqaynaa dadka caawiyay sidaas guddiga waxaan kula talinayaa inay gogosha u dhigtaan reer Soomaaliya oo dhan reer Soomaaliya oo dhan inay dhigataan idinku u tagtaan dadka lacagta haysta dad hadeen maanta helo 5,000 amba 2,000 oo qof hadeen helo oo reer Soomaaliya oo min $1 bixiya wala $1 milyan dadka waxa culaysa $2 milyan ya marka waxay la tahay nimankan dibadda joogayna iyagu wax yaqaanaan sida wax loo burburiyo bariga hore afweyne iyaga in la riday
dibadda sidii moogta afweynay orintay imankana waxay ku mashquulsan yihiin sidii Soomaaliya isku dir lahaayeen moogta marka ayana waxaan leenahay walaal dhulka imanaysaan adduunka minka soo xayay guriga ku noqaalay Mareykankii uu furfurnaa baa dadkii noqda go back halkan baana ma hoonay iska gubina waan leenahay kii dooyin gubona carruurta horta keen ninka carruurtiisa halka u joogtay UK ee ka kacayda horta carruurta keen oo kala qoriga qaado laakiin dad masaakiina oo carruurta ay wada iskuulada doonaysa inaad kicisid oo reer hebel adduunka lagu maqdamo hargeysa iyo adliisha hargeysa burcooy gabiile saasa la isku faana laakiin reer hebel wax ku faana adduunka ilaahay lama arag ku ay dibadda jooga reer Soomaaliya moojaane meelkood ka maqan reer ma jirto marka aad iyo aad baan anaguna insha Allah ta'ala xusbaan iyo shakhsiyaanba wixii anagu xusbaana insha Allah horan waan uga bixin hada insha Allah tan waan uga bixin doonaa waa sadaqa jaariya waan uga bixin doonaa insha Allah ta'ala wixii aniga gudoomiyahan gaarsiin kana waan gaarsiin doonaa marka tarmaado baligan waa dawlad mahadnaqina Muuse waa markii madaxweyne markii waristay dawladdu cashuur ay qaaday ay dad ku soo celisaan aan u arkay ya waxa hore u dhicin baa weeye haddii maanta balligeliyay madaxweyne Muuse oo daam sameeyay waa talaabo wanaagsan waa tan leenahay war islaanta aad ka qaadataan cashuurta qudrada haysta waa cashuurta ku soo celiyo har u sameeya waa mas'uul u sameeya ilaahay buu dhaaray waa tan burcaan tii maanta weeyo waa naxay ya marka waxa weeye madaxweynuhu maalinta Jabuuti mariyay wadooyinku mariyay waa arkay quruxda Jabuuti damir maan lahayn markuu arko wadada inuu arkay soo maro soo inuu yeedho ma war wadadaas ka sameeya ku dawladda hoose ya dawladda hawlaha guud in dadka la ficiltana oo quruxda kula ficiltana ba weey dadka ma ficiltana inaga dhixina ka ficiltamina oo reer ku ficiltamina ma reer ku ficiltamaya qaran dhisi karta ma dhisi karta qaran ma dhisi karta oo ma aan soo goleen oo ummadahan isku ogoleen oo ummadaha kale la tartameen oo wadan ku tartameen wadan wax ma dhiskane wata magaalo ma dhisan magaaladeen waxa way kaatay kabeera ma limsan ku weynaa Afrika Kenya كبيرة هرجيز بقى كبيرة تعال لي مسقش فلاين تويلس ليلا إنه هو سليم تراي تويتس وتشيفان مسؤولين هو سوى الدولار واسكو ميدو ترين إيش مليهن والدم مليهن محن كوفاني كرنا ما كان حاليا هيسلح لي كيف عديست وده كيف عديست اسكو تجا هذا جود عثماني وعصبيه عبد الرزاقيو متاني هي هذه موجود معنا أنا ودي قرب تاجنا إن شاء الله تعالى عثمان يقص معنا سلام